السلام عليكم Soomaaliya السلام عليكم anybody oo ilaahay abuurtay kaalay muslim buu salaamaya mid ilaahay waxa way qaal muslim ka wanaagsan way buuxdaa oo ka naxariis badan muslim aad u wacan oo naxariis badan waa buuxa marka anybody oo naxariis leh oo ilaahay abuurtay anybody oo Soomaaliya waan salaamay salaan kadib Soomaaliya waxaan raanaa laba mawduuc oo very short ka hadlo first naagtan ma milyan la baxaaday yaan lacag loo faan la siinay waa naag aad u xun weey benawaas wax la kufsadayna ma yadan lama kufsan qof ay u hadlaysana linka ilaada waa la kufsaday oo dadka la kufsaday maaga waxayna khaldaana been buu sheegaa waayo diina yar isaga ina yar walaalkiisa duub xitaa dabada bahal yar oo qor yar oo far yar ama far yar de marka uu yaraa ninka uu qabsaday isaga uu kama weynee haduu isagu shaqada iska sii watay oo iska sii shaqaystay de waxa laga caawin caadi nin aadi ahaan la oran la waaba saal ii gal waxbay ahaan leed moogta horta taas waa taas taa waxaan leeyahay wax kama jiraan waay talabaad naagtan ayadana yaan lacag loo aruurin baa xaasidad weeye wax kama jiraan waay dadka gacmaha laga jajabiyay hadda ka soo qaad aniga gacanteeda inuu tuso gacanteyda aniga gacanteeda sabra ugu jiraan soo ma arkaysaan anteeda waa talkaas ka talantay marka waxa la dabcay in wood la igu sameeyo la igu talo dabadna wood ki maartay waa qaban weyday ya ka soo qaad dadka ma Mareykan gudihiisa xitaa documental ku haysto oo lagu kufsaday halkan Minneapolis baa jooga oo iska jooga cid waxba u qaban weyday ayaratay Mareykan waxa qofka waxa lagu xawaaye waa joogan dad waxa qof meel walba magaalo walba dad waa joogaa haddana dawladdu haday doonto ama xumaata ma hasamaata way joogtaa daan ka soo qaad mar baanbur qaxootiga marka dawladdu way samaysay report way samaysay even though aniga maxaa raadnaa police inuu noo imaanin hospitaalka lagu sameeyay hospitaalkana marka waxay noqotay hospitaalka inaan tago stationka baanbur Bambaas inaan tago ka soo qaato reportkayga ilaa haddana waan haystaa asayeesha wax ka qabanayana male sidaas oo dad badan oo in badan la kufsaday Mareykan gudihiisa iyo maartay wadanka banaankiisa qaxootiga waa buuxaan dadkaas oo victim ah document cadeena haysta in la kufsaday oo la maartay dhibaato soo gaadhay maanta qof aan dhibaato soo gaarin wax document cadeena haysan inay halka dad kufsi ay maartay marba soo xasuusiso oo ay maartay dhibkiina soo gaaray dadka soo gaaray ay soo xasuusiso oo aan shaqo laga qabanin oo qoftaas aan maartay marba qof dhadlar nugu soo arkantay soo raaxaysato marba maalin walba 10 jeer soo bedesho يا حق ما ها Soomaaliyeed حق ما in la isku digto waxaan idin ka codsanayna ma milyan inaad ka naga reebtaan oo ka reebtaan dadka really victimka Soomaalida aad ma milyan ka reebtaan ma milyan victim ma aha cadeyn ma haysato ma milyan 15 ma ay soo furin cadeyn ma haysato ma milyan lama soo kufsanin cadeyn ma haysato ninka ay sheegaysana lama soo kufsan cadeyn ma haysto haduu asaga xitaa oo wax ku dhacdo ilmo yar soo waalidkiisa lama u sheer gareysan kaba soo qaaduu iska xishooday markii shaqadiisa haddana haduu isaga iska sii wato oo dafar yar buu ka caban hayaay uu wax maartay ka sii waaweyn uu maartay uu sii gudbay ya waxa Soomaalidu ku mahmaa wadiiqada yar wadiiqo weyn bay ku geysaa waxa weeye walaalayaal ma in dadka dibku soo gaaray oo maartay wax ku dhaceen la maartay waxa la soo xusiyo marba maanta maalin walba new day loo ka soo dhigo same day like 20 years ago same day 5 months ago same day ma rabno ana la ka qabto ma milyan ana la ka reebo milyan waxa ka baxda shaqada ayadoo ma ay aha naagaha human rights ka oo sharciga u leh ma ay aha waxa ay doonaysaa inay dadka victimka lacagtooda ka faa'iideyso 3 years bay ugu shaqeysanaysay oo maalin walba ay lahayd gacan baa bareega jiraan maxaa raadayay madaxa injiriga gashay aniga marka cusbitaal ku jira madaxa injiriga gashay waa aniga qofka biraha ku jiraan waa aniga walaalayaal waxana la ka qabto naagta hadaa diinta muslimka aad ku abtirsataan oo Soomaalitiin waxa dhibaato idin soo gaaraysa dhibku idin daba socda waa qomoluudinta iyo dadkaas aad maartay u faa'iideynaysan oo dadka masaakiinta aad markay masaajid ama meel wax u doontaan aad ducuna qabateynaysan oo dhibaateynaysan war hooy waxaan idin sheegay Soomaaliyeed waxaan idin sheegay Ilaahay hadaad taqaaniin isku duubnaada oo naga reeba dadkan waxa aan jirin sheegayo oo beentish ku qaraabanahay oo sheegayo wax aan jirin lama soo kufsan qaxooti kama ayna soo bixin waxa ay sheegaysa document kama haysato
dadka ay leedahay lacag baa u guraya dad magacooda ay hayso oo maanta ay wax siisay ama u guraysa ma jiro 3 sanadood bay halkaa ka qaraabanayso magacayaga dadka magac qof ay shilin siisay ma jiro dad dhibaataysan magaalada waa la joogan waxna uma qabato waxna ma siiso dadka magacooda bay ku shaqaysataa yaa u siiyay sharciga yaa u siiyay Soomaaliya yaa u siiyay khalad weeye ma soconayso in qof bilaadan oo lagu shaqaysto magaciisa oo maalin walba la qumbiciyo oo wax maalin hore ku dhacay markuu lagu soo saaro oo si qabyaaladaysan loogu shaqaysto qof bilaadan oo dhibana ah ma soconayso marka waxaan idin ka codsanayaa islaantan maama Malyuun la baxday yaa waxa weeye waxa ay sheegaysaa waa wax kama jiraan maanta haday igu aragto garbasaar cas anoo xiran ina garbasaar cas bay soo xiranaysaa haday aragto anigoo xiran kuushaas iyadana kuul bay soo xiranaysaa waa dadka waxa weeye waa loo sheegayaa dad baa waxaas ka shaqaysta dadku way badan yihiin waxa ka qaraabta soonahaas oo dhan soonaha Minneapolis dadku waxaas ayay ku qaraabtaan maanta ina kufsigaas iyo waxa meel baa la geeysan nin laga kufsado iyo magaalada aan hadda kula jooga Minneapolis baa la ku kufsaday ayadana waxa leedahay oo cusbitaalka documentiga yaala wax ka qabtayna ma jirto daarood baan wax ka qaban dawlad baan wax ka qaban cid baan wax ka qaban waa buux dad la kufsado meelba documentigoodu yaala waa buux oo markay ka daaleen lawyer iyo lacag waayeen iska Ilaahay u samray marka gabadhan waxaan idin sheegayaa walaalayaal oo laga qabto yaa ilaahay bahad maxaarada isaga awood leh beenta ay sheegaysan maxaarada iyo wax ay dadka maartay maalmo maskaxdooda soo qashinayso xaq ma aha walaalayaal xaq ma aha in qof dhibaato soo gaadho lagu digto maalmo dhagaha sida radio laga ciyo xaq ma aha